Hallo allemaal, mijn naam is Muk Voorent. dhammaantiin waa idin salaamay magacayga waa Forent magacayga waxaa la yidhahaa Abukar Ahmed aniga turjumaanka ayaa ahay Ik werk als gezondheidsvoorlichter bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. aniga waxaan u shaqeeyaa qolada caafimaadka gobolka ama caafimaadka guud waqooyiga bari Gelderland. En wij gaan jullie informatie geven over het nieuwe coronavirus. waxaan samayn doonaa inaan warbixin idinka siino cudurka faafa ee coronavirus. Door het nieuwe coronavirus kunt u verkouden worden en gaan hoesten. waxyaalaha uu keeno cudurka corona waxaa ka mid ah qofka in uu duray ku dhaco ama hergeb uu ku dhaco dabeedna uu bilaabo inuu qufaco. Soms krijgen mensen een longontsteking, maar dat hoeft niet. mararka qaarkood dadka waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco sanbab xanuun kaas laakiin khasab ma aha. U heeft een koorts, hoest veel of ademt moeilijk. adiga mararka qaarkood xumad ayaa ku qabata ama qandho qufac badanna waa leedahay iyo naqaska oo kugu dhega. U kunt het virus krijgen als iemand dicht bij u hoest of niest. adiga waxaad qaadi kartaa cudurka haddii qof uu qabo agtaada ku qufaco ama uu ku hindhiso. De druppeltjes ademt u in en zo kan het virus in uw lichaam komen. waxyaalaha ka soo baxa qofka marka uu qufaco oo ka soo faniina ayaa dhici karta inaad ka qaadid cudurkan jirkaaga uu galo. Het virus kan ook op handen zitten. waxaa kaloo dhici karta cudurkan in aad gacmaha ku faafisid ayaa dhici karta gacantaada inuu galo. Geeft u iemand een hand, dan kan het virus via de handen verspreid worden. haddii qof aad gacanta ku salaantid ama gacanqaad aad ku samaysid waxaa dhici karta in cudurkan uu gacantaada aad ku faafisid oo aad ku fidisid. Raakt u dan uw mond, uw neus of uw ogen aan, dan kan het virus in uw lichaam komen. haddii aad gacantaada ku taabatid afkaaga ama sankaaga ama indhahaaga waxaa dhici karta cudurkan inuu jirkaaga ku faafo. Dit is belangrijk om het virus niet te krijgen. tan waxay muhiim u tahay inaadan adiga cudurkan qaadin. Was uw handen vaak en gebruik stromend water en zeep. inta badan gacmahaaga waa inaad meertaa oo aad dhaqdaa biyo socda ku dhaqdaana saabuun iyo biyo socda. Was goed tussen de vingers, de vingertoppen, de binnenkant van uw handen en de bovenkant van uw handen. waxaad samaysaa si wacan inaad gacmahaaga u meertid farahaaga cidiyahaaga iyo gacmaha kor iyo hoos intaba. Droog daarna uw handen goed af met een schone handdoek of papieren handdoekje. waxaad isku daydaa inaad gacantaada ku qalajisid shukumaan ama tuwaal saa u taqaanidba ama warqadaha gacmaha la ysaga tirtiro kadibna tuur warqada ama shukumaanka aad isticmaashay si aanan qof kale u isticmaalin. Gebruik handenalcohol alleen als er geen water en zeep in de buurt is. waxaad isticmaashaa keliya alkoolada gacmaha la ysaga dhaqo haddii aan biyo iyo saabuun aanan ku dhoweyn. Geef mensen geen hand. ha siinin gacantaada qofna ha ku salaamin. Blijf op 1,5 meter afstand van mensen die hoesten en niezen, maar blijf sowieso op 1,5 meter afstand. isku day inaad qofka u jirsatid 1 mitir iyo bar haddii qofka uu qufacayo ama uu nidsayo haddii kale sideedaba ka fogow qof kasta. Dit is belangrijk om het virus niet aan anderen door te geven. taa waxay muhiim u tahay inaan cudurkan uusan sii faafin aanan qof kale gaarin. Nies en hoest in uw elleboog. isku day inaad ku qufacdid ama aad ku handhistid garabkaaga dhexdiisa. En gebruik papieren zakdoekjes als u uw neus moet snuiten en gooi het zakdoekje daarna weg. isticmaal warqadaha diifka la ysaga tirtiro ama tishuga loo yaqaano kadibna tuur warqadaas haddaad isticmaashid. De maatregelen in Nederland zijn nu qaanuunka ama sharciga ama tallaabooyinka laga qaaday Netherland sidan ayay u muuqdaan. beperk het sociale contact tot het minimum. isku day inaad xiriirka bulshada aad la samaynaysid inaad yaraysid. Alleen door dit te doen kunnen we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. taa inaan samayno ayaa waxay noo fududaynaysaa inaan dadka intooda badan aanan cudurkan qaadsiinin ay caafimaad qabaan. En zorg voor strikte hygiëne, vooral het handen wassen, maar zorg ook dat uw woonruimte schoon blijft. isku day in mataqaanaa gacmahaaga mar walba ay nadiif yihiin gacmahaagana aad iska meertid. waxaa kaloo isku daydaa halka aad ku nooshahay inay nadaafadeedu aad iyo aad u fiican tahay.
En maak vooral de deurklinken, de lichtknopjes en de wc-spoelknoppen goed schoon, want daar zitten veel mensen met hun handen aan. isku day albaabada dadka badan gacmaha ay ku taabtaan iyo nalalka halka laga daaro iyo halka biyaha musqulaha laga sii daayo intaba gacmaha dadka ayaa ku yaala. Als u hoest, niest, verkouden bent of koorts heeft, blijf thuis en ziek uit. haddii aad qufacaysid ama aad handhisaysid ama xanuun uu ku hayo duray ama xumad ay ku hayso joog gurigaaga ha soo bixin. Ook als een gezinslid koorts heeft, moet het hele gezin thuis blijven. haddii qof ka mid ah guriga uu xumad hayso ama uu qandho ay hayso dadka guriga jooga dhan waa inay guriga joogaan. En kom pas weer het huis uit als u meer dan 1 dag geen koorts heeft en niet meer hoest. waxaad ka soo bixi kartaa guriga keliya marka aad maalin ka badan oo aadan xumad ku haynin iyo qufacna uusan jirin. Worden de klachten erger, bel dan met de arts en ga er niet naartoe. haddii ay dhibaatada kugu badato wac dhakhtarkaaga ama family dhakhtarkaaga hana aadin adiga. Vraag zo nodig om een tolk of laat iemand die Nederlands kan voor u tolken. weydiiso in uu ku wici karo qof turjumaan ah ama raadso qof Nederland ka yaqaano oo adiga ku turjuma. Verblijft u op een AZC, bel dan met het GZA. haddii aad joogtid xereyaha qaxootiga ama kaamka haddaad joogtidna wac qolada GZA-ga. Als u boodschappen gaat doen, probeer zoveel mogelijk alleen te gaan. Dus neem de kinderen niet mee. haddii aad soo adeegaysid ama adeeg u baahan tahay aad keliga ha kaxaysan carruurtaada. En reis niet met het openbaar vervoer. hana isku dayin inaad bi'elada raacdo ama gawaarida dadka ay raacaan. En als laatste, bewaar de rust, blijf kalm en zorg goed voor uzelf. isku day inaad deganaansho abuurtid ama aad deganaatid iyo in aad nafsadaada si fiican u daryeeshid. Door samen de regels te volgen kan het virus tegengehouden worden en hopelijk gestopt. inagoo sharcigan ilaalina ayay waxay noo saamaxaysaa inaan cudurkan aanan faafin uuna istaago. En wij willen jullie bedanken voor het kijken van deze video. waxaan aad iyo aad idinka mahad celinaynaa inaad filinkan nala daawateen.